Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaynu maqalnaa oo dhagaheena ka bata mar kasta 10 qof ee adduunka ugu taajirsan, balse weli ma maqashay 10 xayawaan ee adduunka ugu hantida badan? Haa, waan ogahay, oo waxay kugu noqotay lama filaan iyo ama kaag, balse waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa 10 xayawaan ee dunida ugu taajirsan ee weliba si fiican la iskula aqoonsan yahay. 10. Conchita. Conchita waa mid ka mid ah xayawaanka dunida ugu taajirsan. waana ayad. Ayadani waxay leedahay hanti dhan oo lagu qiyaaso $11 milyan iyo $300. Waxay ku nooshahay waddanka Mareykanka. Waxay leedahay hanti kala duwan. Mid ka mid ah hantida ayad ayaa waxay tahay goob ay dalxiisayaashu u booqasho yimaadaan. Goobtaas oo leh biyo lagu damaashaado oo lagu dabaasho. Waxaanay ku taallaa goobtani xeebta Miami ee gobolka Florida. Waxay ayadani ka dhaxashay hantideeda gabadh dhaqan jirtay oo loo yaqaano Gail Bosnell. 9. Tomasino. Tomasino waa bisad lagu tiriyay inay tahay mid ka mid ah xayawaanaadka dunida ugu taajirsan, isla markaana ah bisad milyaneerad ah. Waxay ku nooshahay waddanka Talyaaniga, waxaana lagu qiyaasaa hantideeda lacag dhan $13 milyan. Tomasino ayaa markii ay da'deedu ahayd 4 sano jir, iyadoo isla waqtigaas ahayd bisad ku nool caasimadda waddanka Talyaaniga ee Roma. Waxay la kulantay Maria Assunta oo ahayd gabadh la soo furay ahna milyaneerad. Haddaba waxay gabadhani go'aansatay go'aan yaab leh. oo talow muxuu go'aankaasi ahaa? Waxay go'aansatay in dhammaan hantideeda oo ay ahayd $13 milyan ay uga tagto bisadeeda Tomasino. 8. Higo. Waxay ku jirtaa xayawaanaadka dunida ugu lacagta badan, waana digaagad. Digaagadani waxay ku nooshahay waddanka UK, waxaana hantideeda lagu qiyaasaa $15 milyan. Si lamida sidii xayawaanaadkii hore ee taajiriinta ahaa, ayaa waxay digaagadani iyana ka dhaxashay hantida intaas leeg in British ahaa kadib markii uu dhintay, kaasoo magaciisa la odhan jiray Black Whale. 7. Black Kite. Waxaynu badanaaba ka aaminsanahay bisadaha madow inay yihiin qaar nasiib xun, laakiin ma ogtahay in bisadan aynu xusi doonaa ay tahay bisad milyaneerad ah? Black Kite waa mid ka mid ah xayawaanaadka dunida ugu taajirsan, waana bisad madow. Waxa ayna haysataa hanti lagu qiyaaso $25 bilyan. Waxaanay ku nooshahay waddanka Mareykanka. Waxay bisadani ka dhaxashay hantida intaas leeg nin dhaqan jiray kaasoo lagu magacaabo Ben Rico. 6. Sadie, Sunny, Lauren, Layla and Luke. 5 xayawaani waxay ku jiraan xayawaanada dunida ugu taajirsan, waana 5 ay. Waxay ku nool yihiin dhammaantoodba waddanka Mareykanka, iyagoo isla markaana haysta hanti dhan $30 milyan. Waxay ka dhaxleen hantidan gabadh dhaqan jirtay oo magaceeda la yidhaahdo Oprah Winfrey kadib dhimashadeedii. 5. Kaalu. Kaalu waa daanyeer, waana mid ka mid ah xayawaanaadka dunida ugu taajirsan. Waxa uu ku nool yahay waddanka South Africa. Waxay sheekada taajirnimadiisu salka ku haysaa kadib markii ay badbaadisay gabadha loo yaqaano Patricia, isaga oo geed ku xidhan. Waxay gabadhani u calaamadisay daanyeerkan ka hor dhimashadeedii inuu noqon doono ka dhaxli doona uuna heli doono $90 milyan, taas oo ay ku kaliftay gabadhan arrinkani aargoosi ay doonayso inay kaga aargoosato ninkeeda si aanu u dhaxlin. Waxa uu sidoo kale ku leeyahay daanyeerkani waddanka Australia beer. 4. Toby Rimes. Toby Rimes waa magacay keentay silsiladda dhaxalka ee aydu. Haddaba kani waa ay ka mid ah xayawaanaadka dunida ugu taajirsan. Waxa uu ku nool yahay waddanka Mareykanka, waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa waqti xaadirkan aynu joogno $29 milyan. Waxa uu ka dhaxlay hantidiisa awoowayaashiisii hore ee ayda ahaa, oo waxay ka soo bilaabatay silsiladdan dhaxalka ahi 1931 markii gabadh lagu magacaabi jiray Ella Wendell ay uga tagtay eygeygii hanti gaadhaysa $30 milyan. Waanay soo socotay hantidani ilaa ay kor u kacday, ay kobacday, una sugnaatay eygan. 3. Olivia Benson. Olivia Benson waa bisad ka mid ah xayawaanaadka dunida ugu taajirsan. Waxay ku nooshahay waddanka Mareykanka. Waxay bisadani leedahay social media oo waxay xayeysiisaa sharaabka Coke Diet-ka ee shirkadda Coca-Cola ay soo saarto, iyo kabaha loo yaqaano Keds Shoes. Runtii waa cajiib bisad heerkaas maraysa. Bisadan waxaa iskale fanaanad Amerikaan ah oo loo yaqaano Taylor Swift. 2. Grumpy Cat. Grumpy Cat oo magaceeda dhabta ahi yahay Turtle South
ayaa waxaa lagu tiriyaa inay kaalinta labaad ugu jirto xayawaanaadka adduunka ugu taajirsan. Waxay ku nooshahay bisadani dalka Maraykanka. Waxay sidoo kale aad caan uga tahay adduun weynaha, waxaana la sheegaa in dakhligeedu uu ku tiirsan yahay ilo kala duwan sida kasoo muuqashada social media iyo filim jiridda. Waxaa lagu qiyaasaa hantideeda ku dhowaad $100 milyan, inkastoo ninka dhaqdaa uu beeniyey, balse haddana waxaa lagu tirayaa inay tahay mid ka mid a xayawaanada ugu taajirsan adduunka, taas oo malaayiin lacaga haysata. Gunther Ivy amaba Guntherkii afraad waa eyga ugu taajirsan xayawaanaadka adduunka ku nool. Waxa uu ku nool yahay waddanka Jarmalka isaga oo haysta hanti dhan $375 milyan. Waxa uu eygani ka dhaxlay aabihii Gunther III $327 milyan. Waxa uuna aabihii ka dhaxlay hantidan gabadh u dhalatay waddanka Jarmalka oo loo yaqaano Carlotta Leibstein, iyadoo uga dhimatay Gunther III in ka badan $233 milyan. Waxa uu sidoo kale guri aad u qurux badan ku leeyahay eygani magaalada Miami. Haddaba daawade, fadlan subscribe saar kanaalka haddii aad ku cusub tahay, oo riix jaraska isla markaana ka mid noqo asxaabta ku xidhan kanaalka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada waxtarka leh ee aan idiin soo gudbin doonaa hadduu eebbe idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.